bixinay min aclaam almuslimiin waxaynu si kooban uga hadli doonaa maantana saxaabiga loo yaqaano cabdillaahi bin cuthmaan bin caamir bin kacab at-tiimi oo loo yaqaano abubakar bin abi quxaafa abubakar radiyallahu anhu sida uu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii iimaanka ummadayda la saaro kafad ummadda kale oo dhan iimaankooda kafad la saarana waxaa rajixmi lahaa waxaa miisaankiisu uu degi lahaa oo uu xoog badan lahaa iimaanka abubakar radiyallahu canhu saxaabiga loo yaqaano abubakar isagu ma aha saxaabi lagu soo ururin karo saacad keliya laakiin waxaynu ku dadaali doonnaa insha allahu tacaala inaynu yaryarayno waxa uu dhashay rasuulku calayhi salaatu wasalaam 3 sannadood buu ka yara culimmada qaar waxay leeyihiin 2 sannadood iyo 6 bilood buu ka yara laakiin runtii ra'yiga culimmadu waxay u badan yihiin in rasuulku calayhi salaatu wasalaam 3 sannadood uu ka yara saxaabigaasi wuxuu ka dhashay qabiilada loo yaqaano bani tiim oo runtii ka mid ahaa qabaa'ilkii quraysh ugu yaryaraa wayuqda alamru xiina taqiibu tiimu walaa yusta'danuuna wahum shuhuudu laakiin abubakar wuxuu ahaa nin ka dhex muuqda quraysh oo dhan waxaanay culimmadu sabab uga dhigaan wuxuu ahaa marka hore saxaabiga keliya ee runtii awood u leh qof wal oo quraysha oo qaan gaadhay ama isaga ka weyn inuu u abtiriyo oo marka uu ka soo warbaxo uu idhaahdo waxaa tahay hebel aabbahaana waa hebel awowgaana waa hebel walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa saxaabigii u hayn jiray tirakoobka iyo aqoonta saxaabada oo qofkii la garan waayo isagaa loogu yeedhi jiray idan lama hayo quraysh cid ku haysatay aqoonta dadka waxaa kaloo uu sifo u lahaa hadda waa qabla alislaam wa bacda alislaam waa islaamka ka hor iyo islaamka kadib wuxuu ahaa nin taajira oo baayaca mushtariya oo runtii hanti badan walidaalika waxaa la yidhaahdaa wuxuu ahaa dadka u raxmadda badan leh mujtamaca qof ay wax ku dhaceen iyo qof aanay wax ku dhicin laakiin wax ka yara si noqdeen intaba wuxuu ahaa mid tabantaabin jiray waxaa intaa u dheerayd wuxuu ahaa dadka ku sifoobay akhlaaqda dhibirsanida walidaalika abubakar wuxuu ahaa qof lagu ururo lidaalika baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay saaxiib u ahaayeen waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida aynu ognahay wuxuu ahaa saxaabiga keliya ee uu rasuulku soo dhawaysto ee dhowr sifo la wadaaga rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakar waxaa la leeyahay weligii khamri muu cabin aad bay u adkayd quraysh khamrigu biyo caadi u ahaa walidaalika lama hayo qof qaangaadha oo quraysh ka mida oo aan ahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar oo aan khamriga cabin islaamka ka hor waxaa runtii taa la mid ahayd abubakar lama hayo islaamka ka hor cid uu dagaal la galay oo runtii quraysh qabaa'il istila oo xoog badan oo runtii ninba ninka kale uu riixo ayaa uu ka mid ahaa abubakar waxaa la leeyahay 6 carruur ayuu lahaa sida culimmadu ay sheegeen inuu runtii 4 dumara lahaa laba runtii islaamkii ka horreeyeen sida gabadha loo yaqaano qatiila bintu cabdilcusa iyo ummu ruumaan bintu caamir labana intii uu ahaa islaamka ayuu guursaday oo asmaa bintu cumays iyo xabiiba bintu khaarija bintu sayd carruurtiisu 6 bay ahaayeen cabdilaahi iyo cabdiraxmaan iyo muxamed iyo asmaa iyo ummu kalsuum iyo caaisha ummulmu'miniin radiyallahu canha abubakar waxa uu ka mid ahaa dadkii
rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu sheegayo sida xadiiska alimaam albukhaari iyo muslim ay wariyeen uu ku soo degay khiyaarukum fi ljaahiliya khiyaarukum fi lislaami idaa faqihu dadkiinnii islaamka ka hor aqoonta iyo kartida iyo wanaagga iyo dadnimada lahaa ayaa hadday islaam noqdaanna islaamnimadii ay sii kobcinaysaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam